wafdi uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa socdaal ugu soo kicay timid deegaanka Xaaji Saalax ee gobolka Daadmareed. Socdaalkan ayaa waxa ku wehelinaya wasiirka wasaaradda deegaanka Shukri Xaaji Baandare iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga Bashiir Cabdi Xariir. Ujeedada socdaalkoodan ayaa ahaa sidii loo soo qaban lahaa gacan ku dhiglayaashii dhawaan ku dilay taliyihii saldhigga deegaanka Xaaji Saalax Xurre Sahal Ducaale, isla markaana sheegay inay ku hawlan yihiin sidii loo soo qaban lahaa gacan ku dhiglayaashii dilkaasi geystay. Waxa ugu horeynta ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde, kaasi oo ka hadlay sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa gacan ku dhiglayaasha dilkaasi geystay. waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka deegaanka Shukri Xaaji Baandare iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga Bashiir Cabdi Xariir. ugu dambeyntii waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Xaaji Saalax Khadar Cabdi Oday, gudoomiyaha gobolka Daadmareed Jamaal Xuseen Hurre iyo salaadiinta deegaanka ayaa iyaguna ka hadlay sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa gacan ku dhiglayaasha dilkaasi geystay. si kastaba haatee gacan ku dhiglayaasha dilkani geystay ayaan ilaa hadda gacanta lagu dhigin, isla markaana kooxdani wasiirada ah ayaa waxaa dhinacooda ka waday sidii loo soo qaban lahaa gacan ku dhiglayaasha dilkani geystay. oday dhaqameedada deegaankaasi Maxamed Siciid Gaxnug, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Oodweyne.